marka ahmiyadaas ayay leedahay in la isku yimaado oo wax la isku sheego lagana faa'iideysto ayay mudan tahay arrintan iyo arrimaha la midka ah haddii aan mawduuca u soo laabto axbaabi fillaah mawduucii sheekhu uu sheegay ee ah walaaltinimada aynu ku walaalownay islaamnimada iyo waxa nala ka doonayo iyo waxyaabaha ay diinta islaamku naga reebtay waxaan wada ogsoonnahay axbaabi fillaah diinta islaamka inta aan naloo soo dejin dadku dhaqamo foolxun iyo nolol foolxun ayay ku noolaayeen waxaan rabaa inaan wax yar soo xigto sida aan wada ogsoonnahay markii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii la dhibay oo uu nebigu diintii bannaanka soo dhigay oo dadka uu tawxiidka iyo diinta ugu yeedhay waa la dhibaateeyey nebiga iyo saxaabada markaasuu nebigu wuxuu amray asxaabtii inay u haajiraan dhulkaas la yidhaahdo ardulxabasha oo Itoobiya iyo Soomaaliya iyo intaasoo dhan baa ardulxabasha la isku oran jiray dhulkaas ardulxabasha inay u haajiraan buu saxaabadii faray nebigu calayhi salaatu wasalaam boqor baa jooga buu yidhi halkaas dadkana aan dulmin agtiisana aan dadka lagu dulmin halkaas u haajira oo halkaa aada waa tii saxaabo fara badan intay soo haajireen ay yimaadeen dhulkii ardulxabasha nimankii reer Quraysh ee nabiga iyo saxaabada dhibaateyn jiray calayhi salaatu wasalaam markii ay maqleen in saxaabadii ay halkaa u haajireen oo dhibkoodii ay ka carareen kama aysan harin rag bay ka daba direen boqorkii Najaashi u taga oo u warbixiya waxaana hogaaminayay raggaas Abdullah bin Abi Rabi'a iyo Amr bin al-Aas oo wali aan soo islaamin xilligaas labadaas nin bay inta hadiyado iyo alaabo qaaliya iyo hanti u dhiibeen bay waxay yiraahdeen boqorkaas inta u tagtaan nimankan naga soo goostay oo diintii iyo dhaqankii aabayaashood iyo sanamyadii la caabudi jiray diiday oo soo cararay oo baxsadka ah oo nafla caariga ah degdeg ha u soo celiyo u soo sheega baa la yiri way yimaadeen labadii nin oo la soo diray marka boqorkii bay la kulmeen warbixin dheer bay siiyeen riboodkii ayay u gudbiyeen waa niman baxsadaha yiraahdeen oo dhaqankoodii iyo aabayaashood iyo dhaqamadii la haystay wax ka bedelan inta keenay haddana soo baxsaday marka waxaan ka codsanaynaa inaad soo celisid wuxuu yiri boqorkii Najaash al-Habashi ayagana bal aan waraysto buu yiri marka warkaana ka sheegaysaan inuu run yahay iyo in kale bal ayagana aan waraysto saxaabadii buu u yeeray marka muhaajiriinta ahaa saxaabadii waxa u hadlay saxaabigii la oran jiray Jacfar bin Abi Talib oo sayidina Ali ibn Abi Talib la dhashay nabiga in adeerkii ahaa calayhi salaatu wasalaam waxaan u socdaa marka uu ujeedku u yahay hadalkii Jacfar bin Abi Talib oo maalinta ku warbixiyay ayaan rabaa inaan wax ka soo xigto si aynu u dareenno dhaqamadii jiray iyo sidii la ahaa intaan islaamku imaan iyo markii islaamku u yimid ka bacdi isbedelkii yimid Jacfar bin Abi Talib asagoo ku hadlaya codkii saxaabadii dhulka u soo haajirtay ayuu la hadlay boqorkii reer Xabasha ee Najaash al-Habashi wuxuu yiri يا أيها الملك كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة والبقر يهوحنا هانشر نيبو يرهرتا ضد جاهلية أو جاهلي أيان أهينبو يري أصنام أيان عابد جرني بختغنا وعنو جرني أيو يري حولها بختية بختغ أيان عنو جرني ونأتي الفواحش ونقضع الأرحام ونسيء الجوار فاحشة إيا حمانتا إيا ذنب كستورنا وان لا إيمان جرني قرابتنا وقوين جرني درس نمذا وحمين جرني ويأكل القوي منا الضعيف متك حوق له وأنك نقمده نوحو عني جري وهانتدي سبابي جري كان تبرت الدران مسكين كأه كوا أود له ayaa dadka laga xoog roon yahay baad iyo xoog ku haystay oo hantidooda cuni jiray buu yiri fakunna ala dhalik sidaas ayaan ku sugnayn buu yiri hatta ba'atha Allahu ilayna rasuula ila markii dambe ilaahu rasuul noo soo diro nacrifu nasabahu wa sidqah rasuulkaas oo abtiriskiisa iyo runtiisa aan naqaan
وأمانته وعفافه دور سنانتي سي أماندي سنآن نقانه رسول سداسها إلهي نوصو دريبو يرمركي الدنبه فأمرنا بصدق الحديث وحونا فري نبيقو إنا ينرهن شيقنا أيونا فري وحوك لنا فري فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان إنان إله كلي عابدنه oo aynu ka tagna dhagaxdii iyo qoryihii iyo wixii aan caabudi jirnay buu nafaray ammaanada inaan ilaalino nafaray qaraabada inaan xiriirino ayuu nafaray wax alla iyo wixii xumaanaha ee xilligaas jirayna wuu naga reebay wanaag oo dhanna wuu nafaray dhaqamadii xumaa ee jiray marka xilligaas oo baqtigii la cunayay iyo qaraabadii la goynayay iyo dadkii la dulminayay iyo gabdhihii nolosha lagu aasayay dumarkii dhaxalka loo diidayay dhibkii faraha badnaa ee bulshada lagu hayay iyo dhibaatadii iyo dhaqan xumadii xilligaa taagnayd oo dhan ayaa islaamku markii uu yimid meesha ka saaray wanaag iyo isjeclaan iyo isku xirnaan iyo dadka xuquuqdooda in la dhowro ayuuna islaamku noo keenay markii uu soo degay markaasaa rabbi subxaanahu wa tacaala aayad qur'aana wuxuu ku yidhi لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وروحان دين سودتنا كتاب شرفتي شرته إعموينا وحفهمين وإنا وحقرنين وحي بن آدم قيمها يا شرفك كوياشان وإسلامك كتابك إله نودتي أيينو كشرفونا يا شرفي قيمة أينو كويالني آياتك لواك ورانا يا رب سبحانه وتعالى قرآنك مركو تلمامي وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون قرآنك شرف أيوكو يا ذيك النبي محمد يا قومك أجبا وأنا اللي إذن ويدين دونا بر قيامة قف ولي بقرآنك يسيدو عمل فلي يسيدو رقمي أيا لو ويدين دونا رقم مدح حما مركا إيه شري حلقاس أيا إسلام كنا قربي إن أن ندوان حمانتا مدة ذا موقتا إيا مدة ذا قرصومبا إلا فواحشت إيا ذنبية إيا حمانتو على بقيبود قيبنا وامد موقتا قيبنا وامد قرصون وددك قلوبتو ودكو قرصون ويان ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن بورنا يا رب سبحانه وتعالى هؤلاء دوانينا وحيابها حمانتا وحا موقضا إيا وحا قرصون با انت بو نقر يا رب سبحانه وتعالى رقمدي حماء إسلامك ونقر يا وحا كمذا مركا أحبابي في الله القبلية والعصبية والفخر بالآباء قبيالد إيا عصبية إيا إن لغفانا قبيل إيا أضيال هوري. There's so many ideas of what it means to be a real estate investor. People think you need money to make money. Wrong.